بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا وناكسن ومركله iyo barnaamijka dardaaran oo ay maanta marti noogu tahay Aamina Maxamuud Nuur oo ah agaasimaha waaxda daryeelka iyo horumarinta carruurta ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ku soo dhawow Aamina. بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa Maxamed Cabdi Waaxid iyo Maxamed Cabdi iyo kaamiramankiisa salaanka dib waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo barnaamijkan quruxda badan oo aad ugu magac dartay dardaaran anigu waxaan rabaa inaan la dardaarmo guud ahaan bulshada afka Soomaaliya ku hadasha waxaan rabaa inaan kala dardaarmo laba waxyaabood mid koowaad waxay tahay sidii ay maaragtay u daryeeli lahaayeen carruurta sidii ay ugu nuglaan lahaayeen carruurta dhibaataysan oo meel walba taalo oo dariiq kasta taalo kuwa jiran kuwa dhibaataysan kuwa dhaawaca kuwa waalidiintoodii la dilay oo maaragtay dayaca iyo maaragtay darxumada meelaha la yaala maadaama anigu aan ahay agaasimaha waaxda daryeelka carruurta waxaan rabaa barnaamijkayga dardaaran inaan ku focus gareeyo ama ku wajaho sidii carruurta loogu maaragtay dadaali lahaa tan labaad waxaan rabaa inaan la dardaarmo dadka wax haysta oo maaragtay dhaqaalaha Ilaahay siiyay si ay maaragtay Ilaahay dhaqaalaha u siiyo kula xisaabtamaya wuu u jeedaa inay ogaadaan carruurta kuwooda kala ah oo aan waxba baran oo guriga jooga inay ogaadaan in carruurtaas aan wax baran kuwooda ay u noqon karaan baas hadhow sababtoo ah markuu derisku leeyahay reer aan wax baran oo diin iyo maadi midna aan waxba u baran awoodin dhaqaale haysan adiguna aad haysatid waa inaad ku fakartaa in cunugaagii aad badbaadiso aniga marka barnaamijkaas dardaaran labadaas dardaaran baan rabaa inaan ku diro sidoo kale waxaan rabaa inaan iyadana dardaaran saddexaad u diro waalidiinta ilmahooda maaragtay gelinta badan siin kuwa ku dila micno la'aanta kuwa maaragtay ku dhaawaca maaragtay micno la'aanta kuwa naftooda maaragtay macallimiinta ku dila ayaga laftirkooda wax aan micno badan lahayn oo cunuga in wax loo sheego kaliya ay ku sugan tahay intii la dili lahaa runtii barnaamijka dardaaran aniga dardaarankayga ugu weyn waxay tahay in carruurta loo istaago loo gurmado la taageero loo hiiliyo maadaama ay yihiin jiilka cusub oo maaragtay soo baxaya birina maaragtay u ah inay mustaqbal dalkii dadka u noqdaan waa mahadsantahay adiga mudan